munaasabadan oo ahayd mid lagu marti qaaday qareenka Tyler Makenbeek oo kamid ah qareenada ka howlgala magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka waxaana munaasabadani soo qaban qaabiyay hay'adda Annie Jarty Foundation Deutschland e.V. qareen Tyler Makenbeek ayaa warbixin ka siiyay bulshada Soomaalida ah ee degan magaalada Hamburg iyo nawaaxigeeda waxaana uu ka hadlay sharciyada arrimaha qaxootiga Yurub oo wax badan laga bedelay iyo sidoo kale kan Jarmalka oo la fududeeyay tusaale ahaan qaadashada sharciga dhalashada wadanka Jarmalka isagoona u sharaxay qaabka loo marayo sharcigaasi sidoo kale bulshadii kulankani ka soo qayb gashay ayaa su'aalo kala duwan weydiiyay Tyler Makenbeek isagoona halkaasi uga jawaabay dhammaan su'aalihii ay weydiiyeen. Einmal kurz mit Asyl an. Asyl ist, welches Problem besteht in Somalia? Was passiert Ihnen, was war los, als man noch in Somalia gelebt hat, beziehungsweise wenn man jetzt theoretisch zurückfährt? Das ist Asyl. Dafür ist nicht erforderlich, dass Sie in Deutschland die Sprache gelernt haben oder zur Schule gehen oder arbeiten. Es geht nur um, was ist das Problem in Somalia. الوضع كان لغو علي كريم ما أهم ضد كيسان سكو قلدين إن وضع كان لغو دي سابرتي عشقيني سيكس حكلا سميسي ما أهم تاس مهمة وحاب مهمة إن وضع كان حق الله هاي إن الجوكي وما إنجلية وأسيو تاسو إذا لحريتو وضع كان إن لغو علي كريم أما وضع كان إن دماتك جلتو تاسو السبب ما أمرك أدي لغو علي كريم كاغي ما Bei somalischen Frauen grundsätzlich immer eine positive Entscheidung. Bei somalischen Männern im Asylverfahren kommt es immer darauf an, haben sie Familie und was ist ihre eigene Geschichte. إن فاميليين أما قوسس إليهم أما أرين قارة يجوا قارة ويحلّاين وشيء كوكو سافسن دومكا ساس درت هذا إن شاء الله كهلا لقى يابا أنت بدن تكرم هاي من قلدون كورا أما كنا راشا حقوقنا وضع كان جرم. Diese Verfahren werden mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführt, danach oftmals beim Gericht, dauern leider momentan relativ lange, aber lange Verfahren sollten insgesamt nicht schlecht oder nachteilig sein. أنت بدن أريمها بروسيسك أو هواينك أنت بدن محكمتها بروسيس كذا ما يرادو هذه شيء في عن أما ذيك كشيء سئيه وح طبعا حقيقة وضع كلا سكرنتي ما كده أحسبه قاني كجاران لكن وح قولي أو مجرى أو محكمة إيجا أو أنك سجارس لكن دولتي إيجا محكمة إيجا ولا شقينا marka inta badan oo lagu guuleystaa kiisaska haweenka hadii sheekadooda ay tahay sheeko sax ah oo ku saabsan dhibaato dalkii way ka Das ist der Bereich Asyl. Das andere, nämlich wie gut hat man Deutsch gelernt, wie lange ist man hier, hat man gearbeitet, hat man sich durch Schule integriert. Das sind Sachen, die mit der Ausländerbehörde diskutiert werden. midda kale taas waxay ahayd arinta maangelidoonka ama xuquuqda qofka aqoonada in xushmada midda kale xigta wuxuu yiri luqadda Jarmalka barashadeeda iyo isdhexgalka bulshada sameeyay taasna waxa go'aankeeda iska leh arinta qaybta oo biyooda Auslaandka oo qaabilsan ajaanibta hay'adda karta ajaanibta qaabilsan go'aankaas iska leh Bei diesen Sachen muss ich ورحمة الله وبركاته. مجيء وعبد الله علي هذا وكنا مجال هامبورغ. ما تحمل مجال كنا نقول هذا اللوير. سؤال بدن أو يدينا نوجد جوابي. وحياة بدن بكفاءتنا. ورحمة الله وبركاته. دمانتين أديها بين السلامية شوية تسوق الجيش. أنا أقول لك ما المجال المعلم مجاعين وجامع سرمن. حفلة قبضة جالية هامبورغ أديها فرح سنة أنا كسوق الباتو. اللوير مش هنشوفين واحد يجي سؤال أديها مهم وأنا حفلة سلح قلا وأنا حفلة أديها مهم وهاي. مجاعين ويان محمد عبد الله وحنا كنا والله هاي مجال هامبورغ دلك جرمالك. waxaan maanta ku faraxsanahay meeshan in oo isku imaatin meeshan aan maanta isku imaanay مثلا lawyer kan lagu yimaaday oo aan ku weydiinay su'aalo badan oo maskaxdaanada ka buuxay
faa'iidooyin badanna aan maanta ka helnay aadna waa ugu mahad ugu dambeyn waxaa munaasabadani ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Ani Jarte Foundation Dojland Ivow gudoomiye Axmed Somali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا Soomaaliyeed halkan naga daawanaya السلام عليكم marka hore majaayo munaasabadan waxay ku saabsanayd isdhexgal iyo sidoo kale in warbixin lagu siiyo community-ga ama bulshada Soomaaliyeed degan magaalada Hamburg nawaaxigeeda waxaana ay ka dhacaysay magaalada Hamburg runtii waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo magaalada iyo hareeraheedba ka yimid waqtigan halkan ku wada qaadanay maanta halkan ku wada qadaynay waxaana la joogay dad xagga dhanka dawladda ka socda iyo qareeno waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa qareenka oo maanta warbixin siinaya community-ga Soomaaliyeed halka degan ama bulshada Soomaaliyeed ee Hamburg area degan wuxuuna kala hadlayay sharciyada arrimaha qaxootiga Yurub guud ahaan oo la bedelay wax badan laga bedelay sharciyo cusub lagu soo daray iyo sidoo kale kan Jarmalka oo isaguna maaragtay wax la fududeeyay tusaale ahaan qaadashada sharciga muwaadinimada dalkan waaga hor 8 sano ku qaadan jirnay hadda waxa laga dhigay 5 sano marka qaabka loo maraayo marka la xareysana sharcigaas iyo noo sharaxay lawyer-ka iyo xuquuqaha qofka raba in maaragtay uu leeyahay sharcigaas markuu xareysanayo iyo waxyaabaha shuruudaha looga baahan yahay sidoo kale lawyer-ku wuxuu sharaxay wax ka bedelkii lagu sameeyay dadka cusub ee hadda isdhiibaya oo magangeli weydiisanaya wadankan oo iyaguna maaragtay lagu soo kordhiyay qodobo dhowr ah arrimaha magangeli doonkooda taasoo ay ka mid tahay tusaale ahaan waaga hor wadankan qofku markuu yimaado maalintuu yimaado maalintu ku xigto waxaa loo bilaabi jiray lacagtaas oo si cadaan ah ama bangi loo samayn jiray oo cadaan ahaan ama social uga qaadan jiray iyadoo cadaan ah lacag cadaan laakiin hadda wixii oo dhan waa la bedelay waxa laga dhigay hal system oo ah in lagu bixiyo kaarkaasina dadku lacag kala ma bixi karaan kaliya waxbay ku iibsan karaan dukaanada ay tagayaan waxbay ku iibsanayaan baahiyaha ay qabaan markaasi ama waxyaabaha ay u baahan yihiin kaliya ayay ku iibsan karaan sida ayaa laga dhigay lawyer-kan arrinkaas aad buu u faahfaahiyey sidoo kale kulanka waxyaabaha dadku ay wadaageen waxaa ka mid ah cuntooyinkan hidaha dhaqanka adoo yani anagoo og maalmihii la soo dhaafay arbaco khamiis jimco inay 3 maalin ciid ahayd maanta oo axad ah ayaanu sabti aan iraahday baanu xafladaas marka ku soo gunaanay ama ku soo xirnay ciidii caruurtana runtii jaanis fiican ay wahdi waalidkuba inay sarkaan halkan oo ay is wareystaan Xuseen Majaay Dalsan TV Germany